yaga ninka codka baa noo galay waxa laale waxaanu ka haysanaana magaalada iyada isagu maray annaga ale waa halkaanu ku hoos noolayn waa gobolka yaga dhammaaya noo dhisnaa waa kii dadka yaga ku noolaa halkan waa magaalada Lafweyne waxa soo gaaray barakacyal ka soo cararay dagaalada ka ogan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool barakacyashan isugu jira dumar iyo caruur ayaa la hadlay warbaahinta waxayna sheegeen dareenka ay qabaan iyo waayaha nololeed ee wajahayaan waxaana hadalladooda ka mid haasiyatan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad waxaanu nahay dadka ka yimi gobolkooda Laascaanood gobol reer gobolka Sool dadka ka yimi baanu nahay ka soo barakacay magaaladii laga dumiyay maatada lagaga laayay masaajidka laga dumiyay maxaan ku rahay dhibta weyn loo geystay Muuse iyo dadka wataa uu geystay dad masaakiin oo lagu tacadeeyo baanu nahay caalamka waxaanu gaarsiinaynaa in ninkan la ka qabto maxaan ku iraahdaa ninkaas waana dhibay dad nooma noola ma waayeel nooma noola dadkii waayeelka habuu naga laayay maatadii buu naga laayay dadkii waalwaalaa buu naga laayay magaalada noogu dhex jiray masaajidii buu naga dumiyay dadkii islaamka gobolkayagii kuma tukanno maxaan ku iraahdaa gobolkayagii wuxuu noqday gobol aanu ka barakacnay dadkayagii duurku ku jira oo kaneeco ku laasatay waxa laale waxaanu la qoyanahay ma jirto gobolkayagii ninka codka baa noo galay waxa laale waxaanu ka haysanaana magaalada iyada isagu maray annaga ale waa halkaanu ku hoos noolayn waa gobolkayagii dhammaaya noo dhisnaa waa kii dadka yaga ku noolaa wuuna dhibay magaaladeeda waanu ka barakacnay hay'adaha waxaanu ka codsanaynaa inaanu barakacnahay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Faadimo Maxamuud Faarax waxaan joogaa hadda magaalada Lafweyne waxaanu deganayn Laascaanood Soomaaliland baa maxaan ku sheegayay naga soo barakicisay magaaladayadii dagaal baa ka dhacay xun maxaan ku sheegay iskuuladii waa naga way jajabiyeen waxay jajabiyeen maxaan ku sheegay isbitaaladii guryahayagii waa burburiyeen waanu ka soo barakacnay waxaanu ku sugannahay hadda magaalada la yiraahdo Lafweyne maxaan ku sheegay anagu Soomaaliland aad iyo aad ayay noo waxnoo yeelo noo geysatay mar rabno oo ma doonano wax Soomaaliland nooga kacdo wadankayaga inay nooga kacdo dalkayaga oo nooga kacdo wadankayaga oo burbur iyo khasaare dib noo geysatay hadda waxaan ku sugannahay Lafweyne maxaan ku sheegay de waxa laale waxaan maxaan ku sheegay qaxoontigaas aanu nahay de hay'ada waxaan soo in la soo gaaro gurmad degdeg la soo gaaro dadkaas aanu nahay assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Faadimo Maxamed Cawil waxaan ahay dadkii barakacayaasha ahaa ee Muuse Biixi uu barakiciyay dhibaatooyinka uu geystay dilka iyo dhimashada iyo dhaawaca iyo barakacayaasha intaba le waxaan ka soo barakacay anigu magaalada la yiraahdo Cadeeye iminkana waxaan joogaa magaalada Lafweyne haween Muuse Biixi dadka wuxuu geystay dhibaato aan inaba caadi ahayn waxa la burburiyay masaajidii waxa la burburiyay dhaqaatiirtii dadka lagu dabiibayay waxa la burburiyay waxbarashadii ciyaaladii waxbarashada nagaga dhacday dadka qaxoontiga baanu nahay alxamdulillah waxa lagu jiraa bishii Ramadaan ee barakaysnayd 10keedii dambe ilaahay bay mahad u sugan tahay alxamdulillah ilaahay magaalada Lafweyne waxa ilaahay hadda soo gaaraya barakacyal kala duwan kuwaas oo isugu jira dumar iyo caruur mana jiraan gargaar bini'aadanimo oo la soo gaarsiiyay halkan waanigu Maxamed Maxamuud Cawiil kawte magaalada Lafweyne gobolka Sool